Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka dhakhtarkaaga. Muuqaalkan waxaynu ku baran doonaa qalabka ama mashiinka loo yaqaano ventilator. Sidoo kale, shaqada uu qabto iyo sababaha loogu adeegsado dadku ku dhacay cudurka coronavirus. Ventilator waa mashiin hawo siiya bukaanka aan jir ahaan awoodin in uu neefsado ama si ku filan neefta u neefsado. Badanaan waxaa loo isticmaalaa dadka intensive care-ka ah, oo macnaheedu tahay dadka aad iyo aad xaaladooda u liidato, kuwaas oon awoodin in ay neefsadaan ama xaddi yar neefsadaan, sida dadku ku dhacay cudurka coronavirus ama dadka qaba cudurrada sanbabada oo kale. Si kale haddaynu u dhigno, waa mashiin lagu caawiyo dadka ay ku adag tahay inay neef qaataan ama ay iska soo saaraan. Ventilator-ka marka wuxuu inoo qabtaa laba shaqo oo muhiim ah. Number 1, wuxuu qaadaa hawo nadiif ah isagoo geeya sanbabka. Number 2, hawo wasakhaysan ayuu ka soo qaadaa sanbabka wuxuuna keenaa bannaanka ama dibadda. Haddaba, haddii aad aragtay qof uu u xiran yahay mashiinka ventilator-ka, ogow mashiinkan dadka ma daweeyo, keliya wuxuu kaa caawinayaa inaadan oxygen la'aan u dhimanin. Marka mashiinkan keliya wuxuu ku siinayaa oxygen, hawadii wasakhaysneed oo sanbabkaada ku jirtina wuu kaa soo saaraya. Tusaale yar haddaynu soo qaadano, sanbabadaada waxay la mid yihiin sida taayirka gaariga oo kale. Mashiinkan aad u jeedin shaqada uu qabanayo ayaa ah taayirka banjaray ama hawo yar ka baxday inuu buufiyo oo hawo ku soo celiyo. Sidaas si la mid ah, mashiinka ventilator-ka wuxuu bukaanka ka caawiyaa inuu siiyo hawo artificial ah, kana soo qaado qofkii awoodi waaya inuu sanbabadiisa hawo qaataan ama ay iska soo saaraan. Si kooban, ventilator-ka waa mashiin sanbabka u buufiyo sida taayirka loo buufiyo oo kale. Mashiinkan markaad aragtid wuxuu ka kooban yahay shaashad iyo tubooyinkii gudbin lahaa hawada. Marka shaashadda waxaa laga arki karaa warbixinta bukaanka, sida inta jeer uu bukaanku u neefsaday iyo inta oxygen uu neefsaday bukaanka. Waxaa jira moods ama badhamo uu kontaroolo qofku aqoonta u leh mashiinkan ventilator-ka. Waxaa ka mid ah moodskaas tidal volume, oo ah volume-ka ama mugga uu qofku u neefsanayo halkii mar. Sidoo kale waxaa jira mood kale lagu magacaabo rate, oo ah inta jeer uu qofka neefsanayo halkii daqiiqo, ama wax loo yaqaano breath per minute. Sidoo kale waxaa jira beep, oo ah pressure-ka ama awoodda sanbabka lagu buufinayo. Haddaba, yaa hindisay mashiinkan ventilator-ka? Goormaan ayaa la hindisay? Robert Hooke, oo ah nin British oo caan ah oo hal abuuray ereyga loo yaqaano cell ama unug, ayaa qarnigii 17aad hindisay mashiinka ventilator-ka. Waxaan filayaa inaad fahantay waxa uu yahay mashiinka ventilator-ka iyo shaqada ugu muhiimsan oo inoo qabto. Waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagtid asxaabtaada siday wax ugu ogaadaan mashiinka ventilator-ka.